السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan arki doonaa qaybtii saddexaad ee barnaamijkeenan. qaybta saddexaad website-kii aan sameynay wuxuu ahaa sidan subdomain-ka ugas.myartsonline.com buu ahaa. marka waqti xaadirkan website-ku ma diyaarsano oo waan soo set up gareynay mooyeene habeyntiiba hadda dhiman, habeyntaan guda geli doonaa. marka u horeyso xaggan markaan tagno dashboard baan sii tagaynaa ciwaankeena markaan ku jirno qaybta dambe ee laga soo maamulay website-ku markuu ina geeyo wuxuu ina tusayaa waxyaabo kala duwan oo plugins-ka ay soo diyaariyeen. marka plugins-ku waa qaybtan aan hadda dul joogno. wixii plugin ee meesha inoogu jiro waan arkaynaa. waxaa ku jiro pluginadan kan Aximate la leeyahay all in one classic. marka kuwan ku jiro waan iska tirtiraynaa dhammaantood intaan marka laga reebo kan all in one. kadib deactivate baan leenahay, shaqadan ka fadhiisanaynaa. apply markaa dhahdo deactivate buu ka dhigay. marka deactivate marka kan plugin-ka hadda activation buu u baahan yahay. haddaad doonto sii delete garayn kartaa. haddaa hal mar rabto inaad tirtirto taa korabaad ku dhufan wuu kuu select garayn kaad rabtaad ka reebaysaa. kadib delete permanently baan leenahay. marka kan baan ka reebnay, then waxaan leenahay delete, tirtir kuwaas wuu ka saaraya. marka pluginadii keliya wuxuu kusoo afar inta ku jirta uu ka saaray kanan daysanay unbuu kusoo reebay. haddii aad pluginskenan aad plugin cusub haddaa ku darsanaysa xaggaa unbaad aad dhahaysaa. marka plugin cusub waan u baahan doonaa, laakiin stepyo kalan ka yar horeysiinaynaa. hadda haddii aan dashboardkeena aan ku noqono, halkaa aan ku noqono, wax yar waxaa isdhimaya sharaxaado badan oo inta badan uu soo bandhigay waa isyara dhimi. hadda waxaan gelaynaa muxuu ahaa waxaan gelaynaa in pages-keena pages iyo posts wax la dhahaa buu iyo wordpress ku leeyahay. page waxaa la dhahaa wax inta badan aan dhaqdhaqaaqin, sida hadda daanka loo kale website baan idin yara tusi apple.com oo kale tusaale ahaan. marka website-kan aan gallo inta badan waa kuwan pages baa la dhahaa. pageska marka waa wax taagan inta badan oo sidan oo kale u sharaxan, oo laakiin bil dhan ama 2 bilood inuu saa u taagnaadaa suurtagala. marka product cusub ay soo saaraan bay wax ka yara bedelayaan tusaale ahaan. marka post marka la dhahana sida wararka oo kale kuwa awey wararka. haddaan fiirino aljazeera.com waa postiyay soo dhigaan saacad walba warka soo dhacayo. cookies buu nayara weydiinaya. hadda halkan waa hal war, waa hal posti, tanna waa hal war. marka se u kala dambeeyeen buu u kala dambeysiinay. marka page iska taagan ma aha. marka postiya kuwaasoo kale ay isticmaalaan. marka post iyo page saasay ku yara kala duwan yihiin inta badan. marka inta pageska noogu jiro haddii aad rabto inaad fiiriso website-ka dadka markay soo booqanayaan, xaggan haddaa fiiriso sample pagekaasaa noogu jiro. markaan sample pagekeena gallo kan tijaabada waxaana ku qoran. marka kuwan hadda uma baahnin, waan iska tiraynaa. post haddaan u baahannahayna haddaan ku noqono home pagekeeni, halkan hadda hellowdan intaa waa hal posti oo meesha taagan. hal posti waa hal qoraal oo lasoo dhajiyay bay ka dhigan tahay. kuwan haddaan iska yara xidhno waqti xaadirkan waxaan rabnaa inaan tirno pageska noogu jiro iyo postiyada noogu jiro. marka waxaan sameynaynaa dashboardkeeni qaybtii dambaan ku noqonaynaa, then waxaan tegaynaa all pageskeenaan tegaynaa. page intaan tagnay labadan page baa ku jirto. intaan select garayno waxaan leenahay move to trash, salada qashinka gee. marka labada xabbe halkaa ku jirto uu ka saaray. hadda eber buu ka dhigay, laakiin salada qashinka uu kusii riday. salada qashinkana waan hal mar baan ka tirtiraynaa. delete permanently markaan dhahno si abadana u tirtir wuu isticmaalayaa. bas hadda wax page oo ku jira ma leh. labadii page waan tirtirnay. sidaasoo kale aan postiyadana iyadana ku sameynaynaa. postiyada aan galayno hello page
hello world dii ugu horeysay bay ahayd qashinkan u direynaa then haddana qaybta qashinkan salada qashinkan kasii daadinayna hal xabo maadaama ay tahay sidan waad dhihi kartaa haddii kale optionka intaad doorato waad iska saari kartaa hadda haddii aan websitekeena ku noqono sida dadka u arkayaan oo kale malahan wax page ma leh meeshii haday ay ku qoreed hello world-na malahan wax post ama saaro arka talaabooyinka xigaan galayna talaabooyinka xiga waxay noqonaysaa qaybtan all in one-ka oo ah black ink kaliya aan soo reebanay oo qaybtan marka la joogo yaa waxaan tagaynaa export-diisaan tagaynaa macnaha website-kaada hadduu kaa yar kharimo meel hadhow aad muxuu ahaa file ahaan baad usoo dejisan oo kuusoo download garaynaya xilliga aan waxyaabo kala duwan gelinayna website-keena waxay naga caawinaysaa waa backup baan sameynaynaa marxaladdu hadda ku sugan yahay waan soo dejinaynaa hadhow haddii khalad uu ku yara yimaado tan baan ku import garaynaynaa bay ka dhiganta hadda 15 MB iyadoo uu noo soo dejiyey fileka download markaan uu noo diyaariyey waan soo dejinaynaa sida halkan ku aragtaan uu soo degayaa waxyar kolba khadkaas siduu yahay baad yara sugi 14.7 MB weeye waa iska 15 marka 2 daqiiqo qaadanaysa intuu soo dejinayo speedka internetka ku xirantaa hadda inoo dhammaystiray soo dejintiisa aad halkan ku arkaysaan marka waxay noo taalaa xagga downloadiska filekaas inoo dhaxdhigi haddii aan u baahannahay inaan dib usoo gashano waa oo website-kaada khalkhal aad ka yara dareento import baad leedahay import markaad dhahdo filekii baad dooranaysaa import tusaale ahaan haddaan idin yara tusabo import hadduu fileku meel ku yaalana waad soo jiidaysaa halkaasaad soo dhigaysaa haddii kale sidantaa ugu dhufato yaad filekii computerkaada ku yaalay yaad doonan bay ka dhigan tahay toos downloadiska hadda waa kana isagii marka okay markaad dhahdo uu kuusoo import garaynaya import waxaa weeye uu kuusoo gelinaya backupkii marka file nadiifa maadaama uu ahaa wax khalkhala uusan ku jirin isbedelka website-kaada aad ku samaysay haddii cilad aad ka yara dareento weeye meeshaad u baxsanayso website-ku sida xaggan dashboard-ka hadda markaan ku yara noqono appearance wuxuu yeelanaya teamkan tagayna inaan team ku yara install garayno waxaan sameynaynaa qaybta theme plugins waan yara arkaynay hadda appearance markaan tagna teamkaan sii tagaynaa teamka markaan tagna teamamka hadda inoo install garaysan waa kuwan aad arkaysaan marka kuwan waa kuwa default ah waa kuwa wordpress kala socda inta badan marka add new baan leenahay midaan doonaan soo gashan karnaa marka waxaan idinkula talinay themeka astra la dhaho astra waa theme aad dad badan ay usoo dejisteen haddii aan rabno detailkeeda waa arki karnaa ilaa 5,200 oo qof baa waqti xaadirkan tala bixin ka bixiyay inta badan 5 star bay siiyeen versionka hadda la marayo waqti xaadirkan waa sax laakiin xilliyada aad soo dejisanaysaan waa yara ka duwanaan kartaa muuqaal ahaan sidan bay u yara egtahay wax badan buu ku shaqeyn karaa marka install markaan dhahno themekaas buu inoo install garayn then activate baan dhihi doonaa hadduu ilaahay dhaafo shaqo gelin doonaa wordpress-keena wuxuu inoogu shaqeynay themekan ba hadda inoo shaqeynaya themamka kale waad iska tirtiri kartaa si aynan kuu dhibin mid walba intaad dhexda kaga dhufato iyo delete aad leedahay hadda 2 xabo theme oo dheeri ah baa noo raacsan saa intaan dhahno waan ka saaraynaa kuwaas kana isagana hayna dhaafo bas kii astra oo kaliya hadda inoo soo haray waqti xaadirkan astra hena waan customize garayn karnaa customize waxaa la dhahaa waa sida loogu soo talagalay mooyeen adiga sidaad rabtaa ka dhigan kartaa kalaradaad bedeli kartaa qoraalka fontiga siduu u qormaya bedeli kartaa marka sidaad rabto waad u bedbedelan kartaa way ka dhigan tahay themeka marka qaybtan global haddaan sii yara tagno typography-ga waan sii tegi karnaa heading-giga iyo waxyaabaha suu ekaanaya heading waa ciwaankaadan oo kaleeto
siduu u ekaanayo baad xaggaa ka dooran. Then qaybta body font waxaa la dhahaa qoraalkan sharaxaadda inta badan yeesha, ciwaanka ma aha, waa qoraalka dhexdaa wey. Marka iyagana waa la bedbedeli karaa. Marka la bedbedelayo qalinka markaad ku dhufato fontigaada noociisa waad ka dooran kartaa. Haddii aad rabto halkaa waad iyadana searchida ku dhufan kartaa. Roboto oo font Google-ka uu leeyahay waad ka dhigi kartaa. oo xaggan hadda waxaan bedelayno baadiga weye. Heading fontigana waan bedeli karnaa saas oo kaleeto. Isagana roboto waan ka dhigaynaa. Tusaale ahaan roboto, isagana qoraalkii sidan buu yara noqonayaa, far ka yara duwan sidii markii hore u taalay. Then waxaad bedbedeli kartaa kuwayogan kaleeto paragraph. Haddaan dib uga yara noqono kalarada iyadana waad bedeli kartaa. Group kamid aad dooran kartaa. Haddii aad wax yar khaladay waad dib baad uga soo yara noqon kartaa. Tusaale ahaan kalaradan oo kale halkaa markaad ama midab ka duwan oo green ah waad ka yara dhigan. Then okay, markii aan dhahno wuxuu inoo bedelayaa kalarka. Tan kale iyadana saas oo kale u bedeli karnaa. More midabkan tan ka dhigno. Marka mid walba bedesho maadaama si live aan u edit gareynayno meelahan baad yaad ka arkaysaan isbedelada. Kalarka haddii laga tago container buttonka sidana siduu u ekaanay xaggana iyadana laga soo bedbedeli kalar hadday tahay, iyo shape-ka xataa ay yeelanayaan mid afar geesa mid wareegsan. Accessibility haddaan dib uga yara noqono header builder qaybta ciwaanka ay hagaajinayso waan guda galaynaa. Iyagana site logo yeelan oo loogada qaabka loo gelinayo dib baan ka arki doonaa. Website-kayga meesha ku qoran tahay qoraal ahaan oo ciwaan u ah meesha kore waxaad sharaxaad yar ka bixin kartaa. Google-ka iyo website-yada injinada wax raadiyo waxay inta badan sharaxaad dambe eegtaan. Suuqayga aan ku iibiyo sharaxaad yara kooban oo website-kaada yara sharaxayso. Alaabada waad dhihi kartaa ama goob waxbarasho dugsigayga wixii la doonaa laga dhigi karaa. Waa tusaale ahaan dugsi oo kale markay tahay dugsi hoose dhexe oo kale tusaale ahaan. Marka qoraalkaas xaggaas buu yara bedelayaa mobile ahaan iyo waxyaabaha kale sida loo arkayo. Then publish markaan dhahno waxayni uu inoo publish gareynayaa. Dib markaan u degno kuwayagoona dhan waan customize gareyn karnaa. Haddii aan iskaga baxno tan customizationka qaybta hagaajinta sidaa rabto aad ka dhiganayso waa sida. Marka tallaabooyinka xige ee sameynayno waxaa weeye muxuu ahaa inaan muxuu ahaa settingiga tagna halkan generaltan tegaynaa. Meeshii aan dugsi hoose dhexe ka soo dhahay xaggana waa laga yara bedeli karaa iyadana. Marka qoraalkan waa la boqori kartaa haddaad rabto. Xaggan laakiin ha bedelino website-kaada ciwaankiisa waxay saameyn ku yeelanaysaa ama kaa kala goynaysaa website-kii. Marka intan hadda ha isku taabanin waqti xaadirkan. Haddii website-kaada website dadku ay iska diiwaangelinayaan yahay halkaa waad saxan. Then waad save baad dhigi kartaa. Toddobaadka taariikhda uu website-kaada xisaabinayo maalinta ka bilaabanaysa Isniin miya, Axad miya, Sabti miya waa kala dooran kartaa kolba sidaa jecesha. Marka u dambeyso save markaa dhahdo qayb setting iyo generaltan save gareynay bay ka dhigan tahay. Haddana haddaan qaybta writing u gudubno iyagana intan buu yeelan. Haddaan usii gudubno qaybta muxuu ahaa reading-iga akhriska iyadana sidan bay noqonaysaa. Marka haddii tan ay kuu saxan tahay waxay ka dhigan tahay website-kaadu inaan hadhow waxa ku qoran injinada ayna soo raadin karin Google-ka oo kale. Marka haddii aad injinada inay ku soo raadiyaan Google-ka marka lagu qoro website-kaada qoraalkiisii la soo raadiyo haddii aad rabto halkaa waad u fasaxaysaa way ka dhigan tahay. Check-taad ka qaadaysaa meeshii aad muxuu ahaa moraalkooda jebinaysa inay soo raadiyaan aad u diidanayd waad ka fasaxaysaa way ka dhigan tahay.
marka permalink qayb la dhahaba iyadana inta badan laga hagaajiyaa. Waxaa jiro wax la dhaho muxuu ahaa tusaale ahaan website-kaada ciwaankiisa sidan oo kale markuu yahay page-ka ama qaybta postiga iyadana qayb kale sii yeelanaysaa. qaybta haddaad rabto inuu ku abtirsado waxaa laga dhigaa post name, magaca postiga ayaad ka dhigani. haddii aad taariikh ka dhigto sidan oo kale taariikh buu raacin ama lambar buu raacin, postigii koowaad labaad saddexaad. marka waxaa ka yara fiican magaca postiga inuu inta badan isticmaalo. marka taas baa laga soo saxaa marka u horeyso. settingiga inaha ugu yara muhiimsan waqti xaadirkan waa kuwan. waxaan sameyneynaa website-keena muuqaal ahaan hadda haddaan fiirino suu eg yahay sidan buu hadda u eg yahay waqti xaadirkan aan hadda joogno. qof kasta oo soo booqdo sidaas oo kale uu arkaya. haddii aan rabno waxaan sameyn karnaa muxuu ahaa waa edit garayn karnaa. markaan dib u yara degno back aan dhahno then plugin kalan kusoo darsanayna. plugin kale add new aan dhihi karnaa. pluginada waa adeeg gooni ah bay ku qabanayaan inta badan mid walba iyo wixii soo dejista xagara laga arkay. pluginada ugu fiican si live adoo wixii arkay uu edit garaynayo Elementor baa kamid ah. Elementorka hadda 5 milyan baa la soo degtay. dadka ratingiga siiyo ilaa 6,000 iyo wax inta badanna 4.5 star bay iyo average-ka noqonaya LLs-ka. mar walbana waa la update gareeyo. hadda kan 3 toddobaad ka hor baa la update gareeyay. WordPress-ka version-kiisa ugu dambeeyo way isla shaqeynayaan bay ka dhigantahay maadaama lagu yara tijaabiyey. waqti xaadirkan waxaan rabnaa inaan la soo degno hal plugin oo dhammaan waxaan oo dhan inoo waxayna starter template baa la dhahaa. starter template markaan isaga shaqadii buu ku fududeynayaa bay ka dhigantahay. starter template waa kana 1 million baa isaga la soo degtay. 3 shikoor baa la update gareeyay. install marka la dhaho waad install garayni then activate baa leedahay waad shaqo gelinaysaa. markaad shaqo geliso pluginkii noogu jiray mooyeene kan baa hadda soo galay bay ka dhigantahay. marka haddii aan appearance-ga tagno starter template baan arkaynaa pluginkii hadda aan install garaynay shaqadu inoo qabanaya inaan aragno haddaan rabno. then khadkii kolba ku yar xiran tahay kolba si kugu soo dhigo. website-kaada diyaarsa baa leedahay. marka kuwa editarada ah ee website-ka yara edit gareeyo kanaa jiro laakiin ka ugu fiican waa kii hadda Elementor-ka idin sheegayay. website-kaada suu ekaanayo waad ka dooran kartaa. sidan u ekaan waa mid aad adiga xulan karto. waad raadin kartaa kuwo school iyo wax la xiriiro waad sameyn kartaa haddii aad rabto. tan oo kaleeto iskuulkan oo kale kan qaarkood baa premium ah. premium waxaa weeye lacag bay ya pluginka inaad iibsataa la rabi. qaar baa free ah. kan oo kale hadda waa free. kan waa free. kan free-ga aan hadda yara tagno tusaale ahaan markaad saa dhahdo then click then sii soco baan leenahay. marka stepkii koowaad ba hadda dhammaystiray 5% wuu marayaa uu sii dhammaystiri doonaa. marka wuxuu kuu diyaarinayaa template-kii hadda aan dooranay plugins-ka uu u baahan yahay oo dhan buu kuu soo diyaarin iyo adeegyadii uu u baahnaa oo dhan. marka intaa uu ka dhammaystirayo maan hadda yara sugaynaa 5% maadaama marayo. adeegyadii oo dhammaystiran wey bas website-kaadii oo ku dhammaystiran. stebyada xiga waa inaad iska edit garaysato waxa hadhaya kaleeto.